ummadii hore reer Faris waxay arkayeen maalku inuu yahay badbaado faqriga waxa la yiraahdaa inuu yahay khayr arintaas waa ta keentay dadkii hay u nisbo sheeganayay bariga hore diinta Kiristaanka inay yiraahdaan war inaga tuura markay dooneen inay warshado sameystaan oo ay horumar adduunyo sameeyaan kaniisadiina ay hortaagto ay yiraahdeen waa wasakh adduunyada iyo wixii ka joogtada waa kuwa kaniisadii ka dhaqaajiyay iyo diin wax la yiraahdo ay diintu kor hadii ay naga xanibayso horumarka adduunyada kaniisada ha ku xidhnaato waxa kale oo macruufa oo taa cagsigeeda ama ka soo horjeeda madhabaha shuuciyada iyo raasmaaliyada nimanka mulxidiinta ah ee bilaadiinta ah shuuciyiinta iyo qolyaha adduunyadu ay qaadatay ee jeebka ay ku ridatay reer galbeedku ay hormuudka ka yihiin iyaguna waxay u arkayaan maalka inuu yahay ilaahul afraad wal jamaaca shakhsiyaadka iyo ummadaha in ilaahoodu maalka yahay nimanka yuhuudu marka ay takhdiidka sameeyeen boqol iyo siyaado sano ka hor waxyaabaha ay ku heshiiyeen bay kamid ahay si aynu dadka u qabsan karno si la inoogu sujuudo la inoo caabudo si afkaarteenu ay u socoto waa inaan dhaqaalaha gacanta ku dhignaa iyo meel kastoo dhaqaale uu ka soo baxayo sida dahabka sida baananka sida warbaahinta iyo meel kastoo wax lagu cunayaba hudheel yar oo kastoo lagu urursan yahay adduunyada intiisa badan mar haddii lagu sheegay inuu caalami yahay hudheelkaas yuhuud baa daba ku leh qoladaasina halkaasay mariyeen waxay yidhaahdeen qofka maalka lehi isagaa meeshan ka ilaahoo laga dambaynaya meelaha qaarkood baad arkaysaa qofka taajirka in loo sujuudayaba markuu meesha soo baxo ama uu ka soo moodo sidaa darteed dariiqada islaamku maray waxa weeye taa dhexdhexaadka waa nicmo ilaahay u bixiyo oo ay tahay sida wanaagsan in loo isticmaalo iyadoo ilaahay loogu mahadnaqayo bal waxaynu odhanaynaa qur-aanku magaca u bixiyey maalka waxa weeye erayga khayr buu ku isticmaalay ilaahay baa waxa uu wa innahu lihubbi alkhayr lashadiid maalka weeye erayga khayr waxa looga jeedaa waa maalka insaanku maalka uu jecel yahay maalkaasoo khayrkaasoo maalkii looga jeedo إلهي بقى آيات كما كوري كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قفوا والدين تيددك حكتلا هاودر دارمو هدو خير كتغو خير كاتوحة ويا مالك مثل بعض النظام قاعدة وبقنا قواعد الإسلام كان مالك كمدة وحوية المال مال الله والإنسان مستخلف فيه مالك ومالك إلهي أضومه لو أضومه إلهي يقول لو أمانه marka qofka maalka gacanta ku hayno waxaynu aaminaynaa inuu maaliga dhabta yahay ilaahay inaguna aynu ka dhiganahay shaqaalihii isaga wakiilka kaga ah sida uu yiri u maamula iyo meeshuu ka shaqaysta iyo meeshuu ku bixiyana inay isaga ka amar qaadano taa waxa tilmaamaysa nusuus fara badan ilaahay baa waxa uu leeyahay wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi isagoo ina faraya inaynu maalkii ka midho dhalino آخرة كنا جنة إلهي يا إلهي وحي الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وحكب بحية وحي إلهي وكيلا بين كبيرة يدينكم مالي منين أمانة ياته وصلا استوركي بركوكرا أما لك مالك بخارك قف قول علينا يتأثر كوكر وكذا جايها قفكي مالك قعدت كوهي إلهي وحي الله وكيل بقى يجتي إليه يدينكم بابنما ومالي منين أمر تقاطع وحكب بحية مركنا إلهي وحي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الضمان الله حرين إذا آيات كور رميسي والكاسة إلهي وحولها إلهي وحكتية حولها إلهي إذنك ويدسية وحكتية وهكذا بخيلنا وحي لها الآيات كلا كلها سورة الواقع كفتها لسبب المامة هي حولها إنه يسوي إسكالين هي مالك إنه قعنت فوها إنه هي أرساقات أم لها إن فرد لك أضوان صلاة إلهي وحولها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وحكوا رنتان بل وحا أبيرنا يساه يا صوصارة بينك صوصارة مثل إلهي سبحانه وتعالى إنسان كنت وبيرتي قرار أيو كشبا فريدي شنيد النقري
dabeetana uu eegaan waa kaa sheekhu qodobada sicir bararka keena waxyaabaha ka mid ah dabeecadii baa isbedeshay iyo roobkii waxay yidhahdeen iminka markay sii taxliilinayeen roobkii baa wuxuu u batay bay yidhaahdeen kuwa aan waxba soo saaraynin oo xagga afrikada iyo caalamulislaamiya nimankii wax soo saaraya reer yurub iyo reer maraykanna wuu ku yaraaday oo waxaaba la tilmaamayaa sanadkan in barafkuba uu iska yaraa marka haddii sidii hore ay ahaan lahayd ama annaga nagu badan lahaa madarku waanu ka midha dhalin lahayd bay yidhahdeen macnaha si cawajaa dadka loogu dhigayaa taasina waxay tilmaamaysaa runtii inaanay waxba gacanta ku haynin ila badda ay afuufi lahaayeen oo daruuro ay samaysan lahayn hadday taal hayaan ilaahay in laga sugayo subxaanahu watacaala arsaaqada iyo maalkaba waxa walaalayaal in qodobka saddexaad uu noqonaya maalka marka ilaahay ummadda u dhiibay waxa uu nasku tilmaamaya ama ayna aaminsanahay haddaynu dadka muslimiinta aan nahay fitna inuu yahay macnaha wax qofka lagu imtixaanayo qofkii baa lagu imtixaanaya ummadda gacanta loo geliyay maalka ayaa la eegayaa ma dadkay ku adoonsanayaan oo sidaa yuhuudda aynu kaga warramayno ayay niman waaweyn oo dadka ka duwan iska dhigayaan ay ku kibrayaan oo caalamka ay ku fasahadinayaan oo caalamka ay ku qaydinayaan mise ilaahay bay ku adeecayaan ay janno kaga iibsanayaan ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa maalku inuu yahay wax qofka lagu imtixaanayo waa adiga arkay oo qof awood leh oo aqoon leh oo caafimaad la iska faramaran oo laga yaabaa inaanu masaariiftiiba hayn waxa laga yaabaa islaana waxna qorin waxna akhrina hadday doonto curyaamadihina way kiishad weyn tahay meel ay kala dhigtay laaba oo kaasiba uu shaxaabayaaba hadduu wuxuu xirfad iyo xoog yahay ka aqoon-yahanka ah ee xariifka ee caafimaadka qaba ayaa buuxsan lahaa baaranka laakiin waa qadiyad ilaahay waa arrin ilaahay looga dambaynayo asbaabtu ha jirto iyo aqoontii lagu soo saarayo dhaqdhaqaaqiiba laakiin haddana waa wax qayb ilaahay weyn qayb ilaahay wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi rizq ilaahay uu idinku kala dheeraad siiyey idinkaa kala dheeraad yeeshay ma odhan anaa idinku kala dheeraad siiyey bul xagga hayn alla wuxuu uhi waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna war waxaa ogaataan dadkiina iyo dunyadaba waxaa la idiin dhiiba in laydinku imtixaanaya qofkani talow sideebuu u maamulaya ma meel xalaala buu ku bixinayaa mise meel xaaraana muxuu ka yeelayaa mawqifkuu iska taagaya waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa mar kale inuu yahay wax bilica ziine ah almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مالك إيه ضدك الدنيا اللي يدين لي هو بلعنا أدوينا وحمركم بلعي هاي واحد بدله مركب واحد بدل طوره لكن واحد باقيات لما ينهار هالك لقصة هاي قاضنا أو كملي هاي مالك الخير لقوم الجريو وحذاري ثم حذاري وحيتين هذا لو قفت النادى قفك مالك قعنت كوهيا inuu ummadda iskala weynaado inuu markaa ku kibro inuu ilaahay u ictiraafi waayo inuu xaqii lagu lahaa garan waayo kaa ilaahay u eedeeyey nooca aaminsan markaasaa ilaahay wuxuu uhi kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagnaa insaankii kii la odhan jiray abijahl bay aayadda kusoo degtay baa layihi laakiin waa nas waa camul insaanka adduunka ilaahay uu siiyey waa kibray an ra'aahu istagnaa nicmadii ilaahay uu siiyey buu ku kibray والكاسول نبي أصحاب